garsho waxay ka tirsan tahay koonfur galbeed Soomaaliya marka hadii boqoshadu ku tagay hadii waxa gudubkii ay weligood ninkan moogtahay federaalku ka soo horjeeda in federaal aaminsan maaha mid kale waa nin qabyaalada ay ku weyntahay oo dhulda ay leeyihiin inuu xoog ku qabsado rabo waay marka fikirkii laga sheegi jiray inuu federaal uu soo ogolayn oo ixtiraam oo dadkii inay waxna isla leeyihiin waxna kala leeyihiin uusan aaminsanayn ee qabyaaladna ay ku jirto oo waxa weeyaan dadkii fikirkii maartay maxay qabyaalada ahayd oo dagaaladii sokeeyay ay weli ka guuxayaan oo dadka qaar ay ku sheegi jireen inuu bay arinta tusaysayo in ciidamo maartay uu ka haysto deegaan maartay dawlad ka jirto maamul ka jirto oo maxay haytay maamulkii dadkii yaraa meesha joogay oo kordhigo sida baraawe iyo gandarsho iyo ka samaynayo marka hadee waxay muujinaysaa ninkan inuusan federaal la rabin oo federaal la aaminsanayn qabalina yahay oo qabyaalista yahay hadii wixii la sheegi jiray baa daboobay maxaa kale oo maartay lagu tilmaamay wixii la sheegi jiray baa ka soo baxay marka waxa la hurdaayo toos ninkan wax kala moodayay wuxuu yahay idin cadaatay booqashada madaxweynaha maxay ka dhigan tahay maxaa go'aan oo maamulka koonfur galbeed uu ka qaadanaya arintan waa la shaacin doonaa go'aamada iyo talaabooyinka la qaaday dib laga soo sheegi doonaa dib ilaahay laakiin waxaan ku sheegayaa wadanka waa federaal xasan sheekh waxa lagu xamaanayay mudooyinkanba inuu maartay federaalka ka boodsan yahay uu istusiyay inuu Soomaali ku qabsan karo gees u qabsan karo Puntland dagaal ka wada oo waqtigiin Jubbaland dagaal ka qaaday ka wada Somaliland ma taqaana suu siiriyay Yahuud iyo Israa'iil u galiyay marka wadanka halis ku wada ninkan wadanka khatar ku wada meel xunun ku wada Soomaaliya hadana Soomaali iska gaarinna waa la soo wareysan doonaa wax Soomaaliya la dhahay jira la dhigi doona waxay noqon doontaa maxay dawladda yar yar oo maxay gaar u taagan qolo walba dawladooda ay dhisan doontaa marka xasan sheekh intii wax juhdi badan la geliyay madaxweyne Soomaalida laga dhigay waa la sharfay laakiin qaabku hadda ku wado qaab Soomaali ay meel ku gaari karto ma aha waxaan hore loo soo tijaabiyo rag military oo asay ka xoog badan oo ka taatiig badan oo maartay xagga ciidanka ka aqoon badan wali dadkana intan ay ka xaboonayeen oo qabyaalada intan ay kaga xaboonayeen ayaa waxaan tijaabiyay in deegaan dad leeyahay inta la qabsado la kordhigo anaga qabsanay dawladana haylato waxaas way shaqeyn weysay marka ninkaas waxaas ku riyoonay dad riyo ku jira waaye marka aad iyo aad u mahadsantihiin wixii kala gadaal ay ka soo sheegi doontaa dawladda arrimahaas ku saabsan insha Allah dhaqdhaqaaqyada Bravo ka socdo oo dawladda ay wado sida waragtiin ودولان حد لو سoo qaaday weeye dadka iyo dalka iyo deegaanka koonfur galbeed waxa weeyaan maxay haytay waxana waa wax la ogaayay oo la sheegay in maxay haytay meesha maartay xamar inanka joogay hadda dawladda say wax u wadaan si oo Soomaali ay ku wada socon karto inay sanad cid walba ogeyd marka duulaamadii uu ku qaaday Raskamboni iyo tii uu ku qaaday maxay haytay meelahaas uu ku qaaday u baytana la mid tahay marka uu akhiran ugu dambeyn uu ku jabi doona sida kuwaas ugu jabay uu mutan ugu soo jabi doona dhulninkiisa iskale aween meesha dawladda ka jirtay nidaamka ka jiray inuu soo duulo oo uu soo aruursado kadibna maartay maleeshiyad soo kaxaysto dadkii uu qabsado uu yiraahdaa qabsaday wali uu ku faaro hadee arki doona waxa kale aad u mahadsantihiin waaya ugu dambeyn maxaa ka jira wararka sheegaya in ciidanka dawladdu ay la wareegeen Bravo waa ayaaba sheeganay waa qabsanaya wadahayo hada dawlad ma aragtay dhahaysa meel aan qabsanay oo dawlad kale ay joogtay oo wali dawladii ka tirsanaa dawladii dhexe mid kamid ah qof dhahay dawladda ahay dawladii aan maartay meeshiina waa qabsaday marka erayga isqabadsi adiga marka waxa way aqli xumada iyo tala xumada meesha xasan uu marayo ee ku tusaysayo iyo wadanka meesha uu ku wado waana martaqaan waana la hubaa inuu ku jabayo oo ku fashilmi doono wax la hubo waa taas shakiyar noogama jiro